waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waana qayb toddobaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa soomaalidii hore iyo dhaqanka xididka. dhegaystayaal raggii u seediga ahaa ee sayid maxamed ay isqoomeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekayn oo keliya suldaan maxamuud cali shire oo wixii kala gaaray toddobaadkii hore aydun halkan ka maqasheen. waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray faarax maxamuud sugulle. wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta. haweenay la odhan jiray barni maxamuud sugulle oo ninkaas ay walaala ahaayeenna sayidka ayay u dhexday. wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa, taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii xoolaale. wuxuu ahaa saddexda adduunyo nin wax badan ka haystay oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday. maxaa haddaba dhacay? taariikhda casriga ee Soomaaliyeed dadkii wax ka qoray siday isku raaceen dhacdadii ugu darayd ee jiritaankii daraawiisheed gelgishay halistana gelisay waxay ahayd shirqoolkii Canjeel Talawaa la baxay ee ururkaasi ku kala jabay, shakigana kala geliyey. abbaaraha 1908 ayay ahayd. meeshuna waa Gelingaalle, dhul xoolo daaqeen ahoo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo. waxaa halkaas ku tiil xarumihii daraawiisheed ee taleex ka horreeyey middood. waa dhulkii ay ku bulaaleenoo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen, beera farashada ay ku barteen, ganacsigii badduna uu ugu furmay. waxay ahaayeen berimadii ay kaga soo kabteen 1904 ololihii dagaal ee ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaale lagu markaday ayna ku naafteen. iyaga oo ladnaantaas qaba qarannimana isbiday ayay gumaysigii ingiriiska iyo kii talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleegeen. waxay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bi'inayay si ciidanka u jidbaysan looga kala eriyo. culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen, gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey. kuwaas iyo rag horey daraawiish uga fakaday intay isku dareen ayay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax. waa sheekhii uu sayidku ijaasada ka haystay ee uu magaciisana ku dagaalami jiray. halkaas markay tageenba intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen. wax uu falay iyo wuxuusa falinna way ka wada sheegeen. dabadeedna warqad waana ah ayuu sayidka u qoray. hase ahaatee awjaamac cumar ciise siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay, warqaddii sheekha waa la faraxumeeyey. nimankii uu gumaysigu soo abaabulayna waanadii ku dhignayd ceeb iyo cambaarays bay u rogeen. gadaalkiina xeebta ilig daldala ayay ka soo rideen. sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay. wax haddaba ku qasbay iyo cid kula talisay toona garan maynee warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin. daraawiish ayuu u bandhigay, wuxuuna ugu celceliyey in Sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey. hase ahaatee rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan. raggaas baa waxay shir ku qabsadeen geed canjeera oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn. kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu iska beri yeelay waxa ay iyaguna sayidka ka yeelayaan. aandillo rag baa ku taliyey, aynu meel ku xirro taladana kala wareegno. kuwo kale ayaa soo jeediyey aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana qaar kale ayaa yidhi. laakiinse ka hor saddexdaas talo intii aan midnaba lagu dhaqaaqin ayuu sayidkii nabad sugiddiisa ayaa indho iyo dhagabadnayde qorshihii afgembiga ka warhara. dabadeedna nimankii canjeelkii ku shiray waxay noqdeen wax la dilay, wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday. raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa waxaa ugu weynaa faarax maxamuud sugulle oo faarax dacay lagu naanaysi jiray. sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashiis qabay. maalmo yar kadibba dhankii ingiriiska iyo berbera ayuu ka dhacay. haddiiba faarax maxamuud sugulle wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono, taasoo gumaysigii ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballanqaaday. isla shirqoolkaas tixa qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca faarax ku soo qaaday, isaga oo haaraamaya inoona sheegaya inuu cidlo ka maagaye
aanay jirin sabab uu ula coloobo iyo wax uu u dhibay tooni. waxaa tixahaas ka mid ahaa: niman yahow si daran baa qalbigu iisa damayaaye sokeeyiyo xigaal aanan sugin, sanada maanta ah ee Soomaali oo idili waysun iyo daybaaqe, sullankood lanaar iyo gun iyo saaruqyay helaye, sinjidhaanadii bay khataraysaanjiga ahaaye, oo waa seediyaashay waxeer saatan ii galay, saranama dhex ool faaraxii seerigaa xulaye, ibliis baa sallaan kula degoo saaxil kuu diraye, sucdi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeen. laasadar ceelka la yidhaahda ee ku yaal cidhifka galbeed ee dooxada Nugaaleed ayuu Faarax xarun ka dhigtay. hase ahaatee isaga oo haba yaraatee aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday. koox daraawiisha oo beledweyne kormeer u aadaysay ayuu sayidku kula ballamay waabarkii inta aanay anbabixin inay soo maraan. markay u yimaadeenna intuu madaxa foorariyey ayay ka maqleen isaga oo leh: dacayow daalinkiiyow, dacayow daadufkiiyow, haddaad duunyoy tiraahdo dameer eebbahay masiiyow, haddaad diinay tiraahdo waryaa eebbahay ka daahyow, haddaad diriray tiraahdo lugaha eebbahay ka dabaryow. dabadeedna wax kale uma uu sheegine intuu u duceeyey ayay ka dareereen. kooxdii markay hawsheedii soo ibiday ayna soo kormeereen daarihii beledweyne ee iridda aamin iyo saldhig ayay soo noqdeenoo gudbo ayltoos uma ay aadine Nugaal sare afka saareen. agagaarka laasadar kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yaroo geel ceelka laga soo shubay fulinaya. hadday cabsiiyeen oo u cagajugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen. wuxuu uga tibixsiiyey Faarax Dacay iyo rag tiro yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin. markaas bay isagiina iska sii daayeen, iyagiina xaggii ceelka u degdegeen. wax yar kadibba waxay indhaha ku dhufteen Faarax oo geed weyn halkii doonyaysan, welina cimaamadii daraawiishtu ay madaxa ugu duuban tahay. Faaraxna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday. waxaase dabray cimaamadii madaxa ugu duubnayd oo inta ka dhacday lugaha isaga martay. taasna odayadii daraawiisheed ee aanu soo gaarnay waxay ku macnayn jireen inuu ku dhacay habaarkii la aqbalay ee sayidku uu Faarax ka daba diray kadib markii uu daraawiish ka fakaday. si kastaba ha ahaatee maalintaas ayuu Faarax geeriyooday, isaga oo eersaday xabado afsaar ah oo kooxdii daraawiishta ahayd ay la heshay, isaga oo weli dhulka yaal, cimaamadiina ku dabran. gabay kale oo shirqoolkii Canjeel Tale waa uu sayidku ka tiriyey ayuu saydigii Faarax Dacay ku xusay, inkastoo aanu si toosa ugu magac dhabin. waa geeridiisii kadib. waa gabay labada meelis ee ugu dambeeya ay Soomaalidu aad u taqaan kuna maahmaahdo. waa labadii meelis ee ahaa: hadday seedinima door ahayd, Dacay najaaseeye, ha la isdilo, dagaal waxaan ahayn, daawo lagu waaye. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga. waa in toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.